السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك عاد نقرأ سعوتان وورباهنتي تشيس ميديا. أنا جواه إسماعيل حرس عقال. أيه يدي سوق بينا يقود بدأ برنامج كنا نكوس هبسي هاي. أي نكوه الرهين شركة كده عيم مجال الله سبحانه والله طبعا كبيش أو كوه وقت كنا إنه وضح هذا إنه أيه جبي أهم بدي وضع عي سبب إسماعيل ده في خلافات أوجي. wax laga weydiiyay sababaha shirkaasi u baaqsaday mas'uuliyiinta jabhadda SSC Khaatumo gaar ahaan Najiib Barkhadle oo qaabilsan warfaafinta weyn tawan isla daawan doona waxa kale oo jira mucaaradka Soomaaliland oo shir isugu yimi shirkaas oo saddex qodob ka soo baxeen qodobadana la wadaagi doona waxa kale oo jirta garaad cali oo warqad uu u diray beesha caalamka ku taariikhaysan 12ka bisha ay ku jirno maanta oo cabasho uu gudbinayo beesha caalamka kana gudbinayo federaalka Soomaaliya war ma naga waana federaalku kii shalay doorradii ku horeysay la doonayay dadka miyaanay ahay bal qodobo kale oo barnaamijkeena waa ku saabsan yahay aragtidaada commentiga ka dhiibo sidoo kale share garee barnaamijka subscribe ku waa xaqiina aynu ku horeynaa horta hawlka shirku ka dhacayay waa kan wadala daawado iyadoo laga warbixiyay sababaha uu baaqsaday shirku halkan waa hotelka Jidbaale ee magaalada Laascaanood kaasi oo la filayay maanta inuu ka qabsoomo shirweynaha dhameystirka dawlad goboleedka SSC Khaatumo hase yeeshee shirka oo la filayay maanta inuu halkan ka qabsoomo ayaa baaqday wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda SSC Khaatumo mudane Najiib Barkhadle oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirka uu dib u dhacay maalin waxaan la qaban doonaa maalinta bari waa sidoo hadalka u dhigay geesta kale wasiirka oo su'aalo dhowr ah laga weydiiyay sababaha baaqashada shirkan iyo arrimo kale oo ku gadaaman ayaa waxa uu yiri halka kaga sababtii uu shirku u baaqsaday bal waxa wax laga weydiiyay mas'uulkan u qaabilsan warfaafinta jabhadda SSC Khaatumo magaciisana waxa la yiraahdaa Najiib Barkhadle ku soo dhawow Najiib halkan baaqasho weyna ma aha berrita hadii la hay'admo waa furmaya shirku jadwalkii loogu talagalay habsamiyo socodka qabsoomidda shirka iyo dhameystirka dawlad goboleedka SSC Khaatumo wanaagsan hanaan degan ah wax walba inoogu dhamaadaan shirkuna berri buu furmaya hadii la yiraahdo aad baa u mahadsantahay saacadu wasiir waxa jira kooxaha mucaaradka waxay idigu eedeynayaan in shirkani aad gaar ka dhigateen isla markaasina ay idigu cunaduub ahaan u haysataan arintaasi maxaad kaga jawaabaysaa waan eedeeyeen laakiin eedu waa loo kala egyahay siyaasado bannaanka laga keenay la soo xawilay meel kale inooga yimid aragtiyo kala xambaarsan haddaynu si kale uga ka dhigno qolada mucaaradku sibaad muddaa inay huwan u yihiin huwantii nimankaasi sheegi jireen wax badan baa isku dhexuursan wax badan baana ishuwan waayahay bal haddaba waxa weeye taasi waxay cadeyn u tahay shirkaasi inuu gabi ahaanba burburay maanta iyadoo imkana waliba si kooxa ama gooni loo sheegay Axmed Ali waqtigiisu wuxuu ku eegyahay 5 bisha August jabhadda SSC Khaatumo u jeedinaya waa ayo marka hore waxa jirta mas'uuliyiin fara badan oo markii hore ahaan jiray dadkii Puntland Somaliland dhulalka ka kala imanayay ee ka soo ugaarsaday waxa weeye rag doonaya inay waqtiga soo socda si hogaamiyaan jabhadda SSC Khaatumo oo meelaha iyaguna wax kaga doontaan mucaaradka wuxuu si weyn ugu eedeeyay inay huwan yihiin huwanta markii hore bay la huwan u ahaydeen laakiin sababaha huwan ay idinku kula baxdeen hadda ma ku horkeena waxa weeye sababta huwan lagu baxay waa sababta imanka uu ka hadlayo ninkan lagu magacaabo Najiib waxa weeye kii ka yimid Puntland ee siyaasadda Puntland city iyo mid gooni taagstay iyo mid federaalka ka yimid iyo mid Soomaaliland ka socda iyo mid hilka shanaad ka socda intaas horta meeshan wada maamula nin waliba afkaar buu sitaa haddaba markii hore waxa la isku qarsanayay shacabkana indha kaliya loo sameeyay waxa la lahaa Soomaaliland baa cadawgiina ishaaq baa cadawgiina haddana maanta afkaar soo ka oran lahayn inta waxa si dhacayeen dhammaan dadka waxa laga dhaadhicin lahaa cadawgiina ayayna hortaagan iminka laftigoodana gacanta kalama bixinay cid kaliya wax lagu eedeeyo waxa weeye gacmo shisheeye oo isaaq ka yimi fikrada Soomaaliland ayaana soo galay horta magaca huwan isagu wuxuu kula baxdeen annaga idin sheegnay ilaa annaga idin bixinay sababta maanta uu ka hadlay ninkaasi ee ku saabsan in intaas oo afkaarood iyo fikrado kala duwan iyo intaas oo siyaasiyo intaas oo mid walba qoor iska dhigaya halka isugu yimaadeen iyadoo haddana qof waliba danihiisa gaarka meel ku salaysan yahay oo meel u wada dadkan yare sool baray lagu heshiin lahayd
horta taas waa taas iyadu huwanteena yihiin waxa weeye adaaba cadeeyay laakiin adiga laftigaagu waa tahayo shalaadee dabadhif noo ahayd taas iyada la ka imanaya intaas way kaftan weeyaan xanaaqina waxaan kaloo isdul taagaynaa garaad jaamac garaad cali oo warqad ku taariikhaysan waqtigan aynu taaganahay soo saaray maanta gelinkii hore beesha caalamka u diray weligii anigu dawlad beesha caalamka iyo madaxweyne beesha caalamka warqad u diray waa arki jiray laakiin oday suldaanaho xaafad yar kiiska u kala qaado beesha caalamka wax u diray oo weliba haatan hadduu wax kala ka cabanayo dawladdii uu isagu ku socday ee annaga naaga go'ay ee intaasoo kunoo qof ay u halaagantay ayuu haddana maanta ka cabanaya warniyo horta waa mararkan leeyahay dhulbaanta waa waalan ninkii shalay idin lahaa Soomaaliya inuu ka mid noqonayna maanta waa kan Soomaaliya ka cabanaya bal wax ka dhaha warqadda horta waa tan iyadu warqaddu hadday tan tahay waxaa lagaga cabanayaa federaalka Soomaaliya waxay faragelin ku haysaa iyo arrimo ammaan darro ka abuuraysaa xaalado hadda taagan dhulbaanta dhexdiisa macal magaca dhulbaanta waa ka ku qoran oo aragtaa waxa weeye haddaba arrimaha ammaan darro iyo arrimaha amniga labadaba meel iyaga la hoos gelin nagalti sababta uga cabanaysa maxay taala meesha meeshan siyaasad baa ka socoto kun jeer baan dhigahan ku daloolina wax ku sheegnay ma arrimo dhaqan baa ka socda siyaasaddu adeer waa taad hoos geysay faraha in la uga qaado isimada iyo dhaqanka iyo waxyaabahan maxaa sheegay wixii ay siyaasiyiintoodu u talaya way raacaan laakiin adigu beesha caalamka baaq baad u dirta baaqana waa la fahansay waa kuwa dhulbaanta isla dhex maraya dani baa lacag siiyey war lacagtu waa jirtaa walaw ka qaadan jiray haddana dib ka qaadanaya berigii kasii horeysana dee anagu naga qaadan jiray lacag inay nin waliba meel lacag ka qaato waa isogtihiin afartan siyaasiye midba meel ka yimi afartii jahay iskaga keen daray balse laakiin waxaan la yaabaa nacasnimadooda dadka garaad cali shalay garan waayeen maanta garanaya ninkan Puntlander buu ahaa sidii ugu dar lahaana wadadeeda raadinaya ilaa intaa federaalka Soomaaliya laba jeer uu tagay labadii jeer uu ka soo quus qaatay waa intaan firdhiye siyaasadan maanta dantan la leeyahay aan laga heshiin baa waayahay xasan iyo xamse cabdi barraba waa kii tagay gacmaha mara kala yimid dani uu la hoos galay warka taas iyadu kama qarsoona ninka garaad cali la yahaan beesha caalamku baaq u dirta waa xasan sheekh maxamuud iyo siyaasadda federaalka naga soo gaaray xaalad ammaan darro iyo dhulbaanta dhexdeedii ka abuura oo taa waa yahay miyaydan hore u ogeyn ma hadda ogaateen wax allaale iyo wixii halka ka yimaada garaad calow cidda ula ooyeysa waa garanaya waxa dhaantay adigoo annaga noo soo cawdo yiraaha war federaalka Soomaaliya faragelin bay nagu haysaa inagu dad isku dal ah oo isku dad oo isku ma garanaysaa dee aad soo bandhigto dabadeetana taasi waxay danbay ku ahaan lahayd waxay noqon lahayd nin dawladnimo dhisaya maamulkaaga inta ku diidanahay hadnoodaysa adigoo jabhada SSC khaatumo wato gacanta ku wata ayaad hargeysa dhexdeeda maraysa sababtu tahay amba SSB baan halka ku xidhaa waxa ku diidaya wax laakiin waxa weeye maamulka Soomaaliland inaad hoos keento oo aad sool bari maamulato cidi kuma diidana Soomaaliyan cidi ka soo gaari karta waa anigoo kaliya walaa beesha caalamkan wax ka oran karay walaa maxaa sheegay Said Abdullaahi Dani baan wax ka oran karay waayo soo wada caalamka federaalku sitaa cidi kaliya ya sool bari Soomaaliya ka saari karta siyaasad ahaan ee shacabka iyo dadkan maanta isu soo gurmanayay warma waxaad arki jirtay dadkii kilka shanaadooda yiraahdo waa idin talinay meesha garaad cali laga waayay garaad wiil waa la fadhiyo ileeyahay waxaan u socdaa heshiisiinta warsangeli iyo dhulbahante iyo masiirka reerka dhulbahante leeyahay ee meesha si waaqroon soo yaacday ee mareexaan yimi ee garaad cali yiri gala dagaalkana laga waayay oo dhan ya xarada miyana afartii jahal iskaga daray meeshaas anigu waxay ila tahay cid kale oo wax ka qaban karta ma jirto aan Soomaaliland xaraam jabhada Sheekh Khaatumo waa jirtay jabhada badan way baxeen Soomaaliland ee burbur bay qarka u gaadhay colaad wixii ugu kala maqan yeelkii laakiin marka masiirka iyo ummadda badbaadinteeda laga talinayo halkay u dan tahay ayaa adeer u qorshaysan way jiraan hadda qaar Soomaaliland ka socda oo idinku dhex jiro idin la jooga laakiin aan awood ku lahayn siyaasad ahaan laakiin waxa la oran lahaa garaad cali beesha caalamku taa wax kama qaban kartee Soomaaliland inta warqadda u soo qorto
24 saacadood gudahood bay kaga baxaysaa Soomaaliya waa arrinka siyaasadda arrinka colaadana oo wax halka inoo yaalo haday beera tahay waa ka heshiiyeen haddii ay siyaasadii awood qaybsi tahayna waa Suleymaan taasi iyadu waa taa sababtu tahay raggii hore ugu heshiiyay baad ahayd adigu istee Khaatumo cadayna uma baahno waa ka hadalka u bilaabmay maamulka Khaatumo iyo Somaliland in aanu marka hore dhiiri gelinayno in aanu taageerayno inta ku soo koobayna waa shirkii Caynaba ka dhacay ee lagu heshiiyay jabada SSC Khaatumo waxaana dee ay ku laarantay arrimaha la socotaan kulli waaqicii madaxweynayaasha u isbedelay iyo nimankaasi anigu dee waxa ay markaa iyagu ka cawdeen wallahi dee waxaan arkay wax sax ah sababtu tahay dee inta la heshiiyay baa lagaga baxa taasna anagu Somaliland ha shacab ahaan iyo dad fara badan oo kale oo siyaasiyiin iyo dadka masiirka Somaliland ka taliya kuma raacsaneen waxa ay daadee madax u saaran tahay xisbigii kulmiyihii dambe talada la wareegay taa halkaa kaga gudub waxaa jiray mucaaradka reer Somaliland way shireen maanta 3 qodob baanay soo saareen iyo qodobo kale oo raac balse laakiin 3 qodob ee ugu muhiimsan waxa kamid ah mucaaradnimadii oo si rasmi ah maanta loo bilaabay hadda waa mucaaradada laftigeedii maanta la bilaabay markii hore tolo maxay ahaayeen waayay qodobka labaad waxay weeye saameynta abaaruhu ku yeesheen shacabka Somaliland iyo dadka deegaamada miyiga in laga wada tashado waa qodob muhiim waxa kale oo jawaab la rumaynay laakiin uma maleynay waa run baan noqon doonin waayay waxa kale oo jirta iyana in ay yiraahdeen si buuxda waxaan isu garab taagaynaa qaranka Somaliland ayanu si wada jira anagoo mucaaradkayaga ah waa ma garanaysa halka waa socodsiinayna hore waxa kale oo jira ka hadalka arrimaha Sool iyo Sanaag iyo waxyaabaha wartaaniyo daniinooguma jirtee iyaga iska iman doona iyagoo murmuru socday iska daayaan oran lahaan qodobka waxa weeye ragga ama dagaal baa wax laga qabtaa ama siyaasad soo mahadee siyaasad wada aragtaa maanta Soomaaliya 2 bilood kuma jirin imika halkay abaadka sii deynaya garaaca cali fariimaha diray samada u diray wada salaamaya aragtidaada commentiga ka dhiibo waayahay subscribe maalin walba waa ilowdaanay inaad hadda halkan ila soo galay laakiin nabiga ku sallallahu alayhi salaatu wassalaam wa jecelahay in nabiga lagu salliyo saacadii walba waxa kale oo macnaa yar jecelahay inuu qofkan barnaamijka la socdana waa yar ogaadaa laakiin muhiimaddu haddaad nabiga ku sallido adaaba khayr ku tahay ifiya aakhiraba sababta ugu salliday baa waxay tahay inaad nabi maxamed jeceshahay alayhi salaatu wassalaam marka waxa weeye adigana khayr bay ku tahay anigana laftiga ajar bay u jiro waan ku xasuusiyay inaad barnaamijka ila socotana waa ogahay warwayda salaam ya dhamaantii